shan qof ayaa ku geeriyooday allaha u naxariistay inta la og yahay 24 saacadood ee ugu dambeeyay roobab mahiigaanahay ay ka da'een magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda. qof dumar oo magaceeda loogu sheegay Saynab ayaa ahayd hooyo haysatay carruur ku dhow 10 taasi oo casarnimadii galabta ku geeriyootay xaafadeeda oo ku taala calaamadaha degmada Maxamuud Haybe ee magaalada Hargeysa iyadoo ay geeriyootay markii gurigeedii uu ku dumay isla markaana la sheegay inay korontada xarkaheeda oo soo go'ay qabsadeen. wiil yar oo daadiisana lagu sheegay 6 jir oo isagana magaciisa lagu sheegay Gambiye ayaa isna kamid ahaa dadkii galabta roobkaasi ku geeriyooday waxaana ilmahaasi uu deganaa xaafada Siinay ee degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa. waxa geeridiisu ay timi markii uu ku dumay guri 4 maqsin oo ahaa gurigoodii waalidkiina ay ka maqnaayeen. labada qof ayaa ku geeriyooday roobab xoog leh oo dabayl watay oo galabta ka da'ay magaalada Hargeysa iyadoo khasaare xoog leh ay u geysteen roobabkaasi guriyihii ku yaalay xaafadaha ka soo bilaabma warshadii hore ee Kabista xaafadaha calaamadaha ilaa iyo xaafada Siinay oo ka tirsan degmada Axmed Dhagax. waxaana ay kamarada telefishinka Universal la kulantay guriyo boqolaal ka badan oo ka samaysan dhagax oo qaarkoodna jiingadii uu kala tagay qaarna ay gebi ahaanba isku fariisteen iyo guriyo kale oo jiingada ka samaysan oo iyaguna baaba'ay. waxaana dhibaatada xudunteedu ay tahay xaafadaha ku yaala labada degmo ee Axmed Dhagax iyo Maxamuud Haybe. geesta kale roobab mahiigaana oo xalay soo rogay daadad xoog leh ayaa waxa ku geeriyooday allaha u naxariistay 3 nin kuwaasi oo kadib markii gaariga ay wateen uu qaaday dooxa degmada Dacar Buruq oo 80 kiiloomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Hargeysa iyagoo waqtigaasi u sii jeeday dhinaca magaalada Berbera. 2 nin oo kamid ah 3daasi marxuum ayaa la sheegay inay kamid ahaayeen shaqaalaha shirkadda Total ee magaalada Berbera halka marxuumka saddexaadna uu ka tirsanaa shaqaalaha dawladda hoose ee magaalada Berbera. roobkan ayaa khasaare u geystay wadooyinka xarkaha iyo biraha leerka iyadoo gaadiidka gurmadka caafimaadkuna uu weli gaaf mareegay qaar kamid ah magaalada Hargeysa xaafadaha ku yaala oo khasaaraha rasmiga ay ka dhacay aan weli toos loo ogeyn iyadoo weli roobabkaasina ay da'ayaan daadkuna uu dhulka hoose weli qulqulayo isla markaana xanibaad iyo xayiraad ku keenay socodkii gaadiidka ee qaar kamid ah gobolada iyo gudaha magaalada Hargeysa. allaha u naxariistay hal qof oo haweeney ayaa la sheegay inay ku geeriyootay kadib markii dabayl xoog loo hordhac u ahayd roobkan xoog lahaa ee maanta ka golaha guurtida